السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. kusoo dhawaada YouTube channelka anaga alaaba ugu barateen maadooyinka sayniska, xisaabaadka, fisikska iyo kombiyuutarada. Maanta waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan kooban. Waxaan uga hadli doonaa maadada fisikska chapterka koowaad oscillatory motion, subtopigiisu uu yahay simple harmonic motion. Ustaad, waxaan ka hadlaynaa waa oscillatory motion oo hore aan usoo tilmaannay aan dhahnay waa nooc ka mid ah dhaqdhaqaaq walaxa ay sameynayso, walaxda inay meelna ay ka tagto ay kusoo laabato, ay ka tagto ay kusoo laabato si continuous hadli doonaa. Waxaan uga hadli doonaa object ku soconayo, object sameynayo oscillatory motion laakiin aan sameynaynin curve straight line uu ku soconayo. Sida buug uu noo tilmaamayo wuxuu leeyahay simple harmonic motion wuxuu ku qeexaa motion waxaan ku qeexaynaa wuxuu leeyahay buug wuxuu leeyahay is a type of motion waa nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqa walaxa ay sameynayso under the influence kaasoo saameyn ku leh of restoring force xooga sababa shayga restoring force xooga sababa shay inuu ku laabto bartiisa nagaanshaha, shay soo celinaya shay kale meeshiisa asalka ah ku soo celinaya ama xooga sababaya shaygan inuu bartiisa hore uu kusoo laabta waxaa la restoring force ustaad. Or waxaan dhihi karnaa is a type of ama waxaan dhihi karnaa oscillatory simple harmonic motion waxaan dhihi karnaa ustaad is a type of oscillatory motion. Horta waa nooc ka mid ah oscillatory motion ka aan hore usoo tilmaannay, kaasoo asigana objectiga dhaqaaqa sameynayso ama walaxda dhaqaaqa sameynayso ay ku soconayso wado toosan, wada straight ah ama straight path ay ku soconayso. Okay, example-adan waxaan ku arki doonaa waxyaabaha sameeya simple harmonic motion. Simple harmonic motion waxyaabaha sameeya waxaa ka mid ah exampleskood aad buu u badan yahay, laakiin hadda waxaan labada shay oo focus ka saaranayn ama diiradda aan saari doono aan ka hadli doono waxay noqonayaan insha Allah waxay noqonayaan mass attached to spring iyo simple pendulum. Labadan ayaan focus ka saarayna. Cuf moolo laga laalaaciyay ama cuf moolo lagu xiray siduu u sameeyaa simple pendulum wuxuu rabaa siduu u sameeyaa simple harmonic motion siduu u sameeyaa ustaad. Simple harmonic motion wuu sameeyaa shay moolo lagu xiray ama mass cuf moolo lagu xiray. Dhaqdhaqaaqa uu sameeyo waa oscillatory motion oo ka ah simple harmonic motion uu sameeyaa. Siduu u sameeyaa tusaale haddii this is kan hadduu yahay halkan aan dhahno waa meel sare moolo ku xiran, moolo lagu xiray, moolada mass lagu sii xiray mass. Ustaad haddaan isticmaalo force aan isticmaalo masskan aan jiido fogaan meelahan aan keeno aad u faham halkaan aan keeno aan sii daayo mooladii objectiga miyuu istaagaya arday inaas weydiinaa muhiim. Objectigan ma istaagaya? Maya, objectiga ma istaagayo, laakiin wuxuu sameynayaa socod ayuu sameynayaa. Socodka uu sameynayana waxaa waaye objectigii markaan jiiday aan sii daayo mooladii waxay noqonaysaa inay kor tagto haddana soo laabato haddana sii laabato haddana soo laabato continuously. Marka saas ayay ku soconaysaa ilaa uu ka dhammaanayo initial motionka, ilaa uu ka dhammaanayo ama initial energy-ga tirada uu shaygan uu leeyahay ilaa ay ka dhammaanayso ma istaagayo.
marka markaan force-ka aan isticmaalay shaygan aan soo jiiday maaska aan soo jiiday laabashada uu laabanayo ayaa waxaa sabab u ah ustaad noqoshada uu noqonaya waxaa sabab u ah restoring force restoring force restoring force aan ka hadlayn halkaan oo ka imaaday restoring force aan ka hadlayn halkaan oo ka imaaday maaskii markaan soo jiidnay fakashada uu ka fakanayo ayaa waxaa sabab u ah ama waxa fakashada sababaya waxaa ah restoring force xoogan ayaa kaa celinayo maaska soo jiiday marka ma istaagayo wuxuu sameynaa inta soo jiiday in la eego gadaal u laabanaya haddana wuu soo noqonaya haddana wuu sii noqonaya haddana wuu soo noqonaya therefore wuxuu sameynaya dhaqdhaqaaq oo wuxuu sameynaya oscillatory motion ah oo haddana aan ahayn wado kaarba aan ahayn laakiin straight path ah horey gadaal uu halkaas ugu soconaya oo aan u leenahay sababta aan u leenahay ay tahay mass affect to spring wuxuu sameeyaa simple harmonic motion ayuu sameeyaa qodobkaas ustaad waa isla fahanyaa male okay waxaan drandrinayna waxaan drive ku sameynaynaa ustaad qaacidada aan soo qaadano meeshaan aan dhahno waa a wall waa derbi ama waa meel halkaan aan dhahno waa service meel dusheeda aan ku xirno maas moolo ku xiran moolo ku xiran maaskaano bartiisa nagaanshaha equilibriumka uu joogo waxaa la lahaa barta uu jooga waxaa la lahaa positionka markuu shayga dhaqaaq uusan ku jirin barta uu taagan yahay waxaa la lahaa main position or equilibrium aa la lahaa equilibrium bartiisa nagaanshaha uu jooga micnaheedu waxay tahay force-ka waa zero xooga uu ku dhacayo wuxuu leeyahay ever there is no haddana displacement-na ma laha displacement-giisana waa zero shaygan wax lagu sameeyo ma laha no force is applied wax xoogoo la saaray ma laha okay haddii if I intend haddii aan sameeyo force aan geliyo jiido fogaan intaan la eg aan geeyo fogaan halkaan la eg aan geeyo this is the spring tani waa mooladii fogaan intaas aan la eg aan geeyo barta uu joogo objectiga ama maaska waa bartaan xoog ayaan isticmaalay xooga aan isticmaalay aan ku jiiday aan meeshaas aan ku geeyay waxaa la lahaa applied force aa la lahaa waxaa la lahaa ustaad applied force waxaa ka hadla Isaac Newton second law of motion uu kaga hadlaya wuxuu leeyahay haddaan u baahanahay shay inaan qaado bar kale aan geeyo waxaan u baahanahay shaygaas miisaankiisa iyo acceleration aan u baahanahay cufkiisa iyo accelerationkii movement uu ku dhaqaaqi lahaa u baahanahay uu leeyahay marka maaskii markaan aan soo qabtay oo jiidiyo baraha ka mid ah aan geeyo waxaan sameynayaa displacement uu sameynayaa haddii si lamid ah maaskan haddii aan qabto wuxuu isku dayayaa inuu farabaxsado hadduu kaa fakadana wuxuu sameynayaa simple harmonic motion dhaqdhaqaaq uu sameynaya dhaqdhaqaaqaasoo ah intuu tagaya wuu soo laabanaya halkaasuu tagaya wuu soo laabanaya ilaa aan dhahnay initiaga uu ka dhammaanayo oo barta equilibriumka uu kaga istaagaya haddii compression aan ku sameyno aan kaduudnana aan isku riixin si lamid ah haddana wuu kaa farabaxsanaya kaanama moolo leh soo qaado moolada haddaad isku geysidna way fakanay haddaad kala jiididna way isku imaanay marka haddaad isku soo riixdid compression aad samaysay soomaan siidaanta aad sii daynaysa hadday kala fakato waxa sababay waa restoring force ustaad barteeda asalkay ku celinaysaa haddii intaa kala jiidid ay soo laabato haddana mooladaas waxa soo celiya waa restoring force marka waxaan rabnaa qaacidada restoring force inaan kasoo saarnaan rabnaa anagoo isticmaalayno mass attached to spring taas waa inay la fahantaa okay waxa xooga soo celinayo ama sababteeda leh ayaa loo yaqaanaa restoring force okay Isaac Newton hore wuxuu uga hadlay wuxuu dhahay ma jiro force single u dhacayo
there is no force that happens in a single situation or single state. Ma jiro ayuu leeyahay xoog u dhacayo keli u dhacayo xoogoo dhacadan waxay u dhacaan in pair lamaanay u dhacaan. Tusaale markaan ka hadlayno cohesion force waxaa kasoo horjeeda adhesion force ayaa kasoo horjeeda. Si lamid ah applied force waxaa kasoo horjeedo restoring force. Haddaan xoog shaygan saaro, there must be opposite force that's acting upon equally xooga aan saaray ka falcelinayo waa inuu jiraa. Okay, marka Robert Hooke waxa uu ka hadlayo waa restoring force. Applied force markuu dhaco kadib restoring force kaas uu ka hadlayo. Wuxuu leeyahay marka xoogan oo restoring force ka wuxuu direct proportion uu ku yahay. Wuxuu leeyahay restoring force ka wuxuu directly proportion ku yahay extension ama displacement. Extaas waxaa loo yaqaanaa displacement barbax. Wuxuu leeyahay force-ka restoring force-ka wuxuu direct proportion uu ku yahay extension-ka uu sameynayo spring-kan mooladan ay sameynayso. Haddana wuxuu opposite ku yahay applied force-ka opposite ku yahay. Yes, applied force-ka opposite ku yahay. Yacni jiha ahaan ayuu kaga hor imaanaya. Force markaan saas u jiido dhankaas markaan u jiido extension waxa ka dhalanaya tusaale waxaan soo qaadanaynaa elastigan soo qaadanaynaa ama elastic material shay sameynaya shay kala baxayaan soo qaadanaynaa. Elastigta markaan saan u qabto gacanna aan ku qabto gacan kalena aan ku jiido aan kala bixiyo fogaan intaas leeg aan geeyo aan sii daayo ma si wada jira isku soo laabanay gacantaan aan ku haytii aan ka soo daayay dib bay u soo laabanay. Yes, fartaad ka soo deysay ka soo noqonay waxay u soo laabanaysaa dhanka kale. Calaamadda proportion-ka ayaan waxaan u bedelinaynaa equal k. Macnaheedu waxay tahay k-da maxay tahay? K-da waxay tahay waan ka hadli doonaa. Okay, meeshan proportionality waxaad ku bedeshaa equal k oo ku dhacsan negative x. Halkan waxaad helaysaa f waxay la eg tahay k oo ku dhacsan negative x negative k. Negative k gaas oo tilmaamaya jihada. Marka formally restoring force halkaas ayaan ku helnay. Okay, k maxay tahay marka ustaad k waxa waaye spring constant. Waxaa la waa xadiga moolada. Waa a measure it is a measure of the stiffness of the spring. Waxay halbeeg u tahay ama ay xadidaa xadka moolada ay kala bixi karto. Okay, haddaan ka warran xadkeeda aan ka bixiyo moolada. Moolo yaraan soo qabtay ilaa xadkeeda aan ka bixiyo. Yacni meesha ay ugu dambeysay ay kala bixi kartaan kala bixiyo. Maxaa ku dhacay? Waxaa ku dhici kara damage inuu ku imaado. Waxaa ku dhici kara inay ayada ay kala go'do. Hadda tusaale elastic aan isticmaalayo elasticta ilaa xad aan jiido way kala go'aysaa Soomaan obviously way kala go'aysaa. Laakiin haddaan jiido waxaa jiro fogaan dhan elastictaas ay kala bixi karto. Marka meesha ay ku istaagayso waxa sababa constant spring constant. Xadiga uu xadidayo shaygan inuusan damage uu ku imaanin. Therefore that's why aan calaamad proportionality aan ugu bedelayna equal k ama equal constant aan ugu bedelayna. Marka f oo restoring force wuxuu leeyahay negative k x negative oo tilmaamaya jihada force kale uu ku dhacayo. Marka qaacidadan aan rabnay oo restoring force saasaan ku helaynaa. Okay ustaad intaas waxaan u maleynayaa inaad ila fahanteen u maleeyaa. Waxaan ka hadlayna waa labo force applied force iyo restoring force. Applied force waxaan nahay shay haddaan qabto moolo ku xiran haddaan jiido aan bar kale aan geeyo waxaa jiro force sababaya shaygaas inuu taasoo furto ama bartiisa uu ku soo celiyo. Force-kaas soo celinaya shaygaas bartiisa uu ku soo celinaya waxaa loo yaqaanaa ustaad restoring force ayaa loo yaqaanaa. Restoring force kan yaa ka hadlay marka waxaa ka hadlay Robert Hooke ayaa ka hadlay. Wuxuu leeyahay Robert Hooke restoring force wuxuu direct proportion uu ku yahay extension ama displacement-ka moolada ay sameynayso. Kullama mooladaas xoog u kala bixisid xooga ay ku soo noqonaysana aad buu u sareynayaa. Haddaa in yar kala bixisid xooga ay ku soo laabanaysa aad buu u yar yahay. Marka wuxuu leeyahay haddii aan extension kana dheereeyo ama displacement-ka aan fogeeyo
force-ka badanayo haddii displacement-ga aan yareeyno force-ka yaraanayo therefore wuxuu leeyahay force restoring force-ku wuxuu direct proportion uu ku yahay extension-ka ama displacement-ga ay moolada ay sameynayso ama elastic materials-kaas uu sameynayo. Okay, example 1.3 wuxuu leeyahay what's the magnitude mise ayuu leeyahay of the force required xoogga loo baahan yahay to stretch inuu kala bixiyo 20 cm long spring moolada dhererkeeda uu leeyahay 20 cm with a spring constant xaddiga moolada uu leeyahay 100 newton 100 newton per meter to a length dherer leeg ama baaxad leeg 21 cm 21 cm. Okay, waxaan leenahay ustaad waxaana la siiyey dhererka moolada waxaana la siiyey length of the spring waxaa la waa 20 cm waxaana la siiyey marka extension-ka ay moolada ay bixi karto extension x aan u qaato waxaa la lahay 20 cm waxaa kaloo la siiyey spring constant k oo ah 100 newton per meter waxaan kaloo kaa iloobi ustaad spring constant halbeegeeda caalamiga ama SI unit of spring constant SI unit of k inuu leeyahay newton per meter. Okay, marka waxaan u baahanahay inaan helno force-ka restoring force aan u baahanahay soomaan restoring force waxaa lagu helaa ustaad kx negative ma isticmaalayno sababta oo isticmaalayno negative wuxuu noo tilmaamaya kelito jihada unbuu noo tilmaamaya ma isticmaalayno marka ustaad waxaan u baahanahay restoring force-ka inaan helo moolada waxaan u baahanahay inaan helo extension marka extension inaan helo u baahanahay kan waxaa waaye waa 21 kan waxaa waaye waa dhererka mooladan ay gaari karto ama la rabo xoogga la rabo moolada inuu gaarsiiyo 20 cm. Okay, extension is equal to 21 cm minus 20 cm oo la eg 1 cm. Okay, force waxaa lagu helaa restoring force k lagu dhuftay x ustaad k waxaan haystaa k1 haystaa soomaan 100 aan haystaa waxaan kaloo haystaa x na waa helay extension 1 cm centimeter-kan waxaan u bedelayaa into meter ayaan u bedelayaa meter ayaan u bedelayaa maxaan ku sameynayaa 100 u qaybinay bis 100 cm u qaybinay. Okay, sababtoo waxaan ogahay halkii mitir ayaa wuxuu u dhigmaa 100 cm u dhigmaa marka waxaan leeyahay what will be 1 cm isdhaaf isugu dhufo 1 meter times 1 cm all over 100 centimeter la bixi hal boqol u qaybi waa 0.01 meter extension-ka in meter waa haystaa marka force-ku wuxuu leeyahay ustaad k oo 100 ah 100 times 0.01 oo extension-ka labadan isla baxay hal ku dhufo waa 1 newton marka xoogga ama force-ka loo baahan yahay inuu extension intaan leeg uu gaarsiiyo ama 20 inuu kusoo dhaqaajiyo 21 uu gaarsiiyo waa 1 newton. Okay, example 1.4 wuxuu leeyahay what is the spring constant xaddiga moolada imisa ayuu la ekaan karaa that needs loo baahan yahay a force xoog of 3 newton awoodiisa ama xooggiisa uu leeyahay 3 newton to be compressed inuu pressure gareeyo ama isku soo celiyo moolo from 40 cm to 35 cm moolo dhererkeeda 40 cm inuu ku soo celiyo 35 cm imisa loo baahan yahay mooladaas xaddigeeda meequu noqon karaa spring constanteeda meequu noqon karaa. Okay, waxaan u baahanahay inaan ogaano force-ka inuu direct proportion ku yahay k lagu dhuftay extension marka halkan spring constant formula waan ka diyaarin karnaa. Okay, waxaan sameynaynaa all over x dhe halkan x u qaybi halkan x u qaybi x waa isla baxayaan k waxay leegtahay marka force all over x spring constant waxaa lagu helaa force xoog loo qaybi extension. Okay, maxaan haystaa ustaad waxaan haystaa waxaa lahay moolada
length of the spring waa 40 centimeter. Intended length dhirirka loogu talagalay in la gaarsiino waa 35. ma heli karaa marka extension keli maaha sheyga in la kala bixiyo le maahan, haddii laisku celiyana even wuxuu sameynayaa barbax buu sameynayaa. Okay, extension waxaan ku heli karaa x is equal to 40 centimeter minus 35 centimeter waxay la eg tahay 5 centimeter, faraq 5 centimeter uu sameynaya. Okay, 5 centimeter waxaan u bedelaya ustaad meter ayaan u bedelaya. 1 meter wuxuu u dhigmaa 100 centimeter uu u dhigmaa. 5 centimeter imisa ay la ekaanaysa, isdhaaf iskugu dhufo waxay siinaysaa 1 meter times 5 centimeter all over 100 centimeter u qaybi 500 u qaybi waa 0.05 meter ay ku siinaysaa. Okay, k waxaa lagu helaa force all over extension. Force-kana meeqaan haystaa meeshan marka ustaad? Force maxaa haystaa 3 newton waa la siiyey su-aashay ku jirtaa force of 3 newton. Okay, marka waxaan leeyahay 3 newton all over 0.05 meter. Okay, pointigan ka saaraya 110 buu uga baxaa, halkaas wuxuu uga baxaa 100. Okay, 300 ku dhuf waa 3000 newton. meeshan ustaad ha ku wareerin 0.05 kana waxaan ka saarayaa pointigan ka saaraya 2 decimal place way 100 uga baxaya. marka kor iyo hoos 100 ku dhufsa pointiga uga saar kadib kan pointiga uu ka baxaya u qaybi meter by 5 waa 1 by 5 waa 6 waa 60 newton per meter. Okay, example 1.5 ustaad wuxuu leeyahay a 5 kg mass suspended from a spring produces a displacement of 20 centimeter. What is the spring constant? waxaa lahay cuf miisaankiisu yahay 5 kilogram ayaa laga laalaaciyey moolo. Produce waxayna sameysaa a displacement barbax bay sameysaa of 20 centimeter la eg 20 centimeter. What is the spring constant? xaddiga mooladu maxay tahay? use waxaad isticmaashaa g waxaad u isticmaashaa 9.8 meter per second square. g maxay tahay ustaad? g waxaa waaye gravitational acceleration, waa karaarka of isjiidka. Okay, waxaana la siiyey informationkana la siiyaa waxay tahay mass oo 5 kilogram aan haysanaa waa mid. Okay, waxaan kaloo haysanaa ustaad x displacement 20 centimeter waa ayadana mid. waxaa kaloo na siiyey g 9.8 meter per second square. intaano information aan la siiyey ustaad. informationkan aan haysano ayaan waxaan u baahanahay inaan ka soo saarno spring constant. waxaan ognahay markaan ka hadlaynay restoring force spring constant in lagu helo force all over x in lagu helo. Okay, halkan waxaa naga maqan marka force aa naga maqan. hadafkii ujeedada laga leeyahay masska in la siiyaa waxay tahay in aan raadino force-ka inaan raadino. intaas waa isla fahnay oo maleeya. Okay, force-ka maxaan ku helaynaa ustaad? force-ka waxaan ku raadinaynaa Isaac Newton second law of motion wuxuu kaga hadlayaa force waxaa lagu helaa mass times acceleration. force waxaa lagu helaa mass times acceleration. marka mass already waa haysanaa, waxaan haysanaa waa 5 kilogram. acceleration karaarkana waxaan la siiyey 9.8 aan la siiyey, labadana isku dhufanaynaa 49 newton 49 newton. ustaad waxaan helaynaa force qiimihiisa la egyahay 49. already force-ka waa haysanaa, extension-kana waa haysanaa. extension-kana waxaan u bedelaya marka waxaan u bedelaya meter 20 waay 100 le u qaybi eber la bixi waa 0.2 meter. Okay, hadda ma heli karnaa spring constant? spring constant ma heli karnaa? yes. waxaa lagu helaa k f all over x aa lagu helaa. f meeqaan soo helay waa 49, x meeqaa 0.2. labadan point ee ka saaran 10 ku dhuf, halkaas 10 ku dhuf 490 laba u qaybi 245 newton per meter.
245 waa meter. Ustaad, simple harmonic motion wuxuu leeyahay acceleration uu leeyahay. Acceleration means waa karaar buu leeyahay. Karaarkiisa saan ku helaynaa marka qaacidada acceleration of simple harmonic motion qaabkeen ku helaynaa. Marka waxaan oga hadli doonaa qaybtan yar derivationka, yacni qaabka ay ku imaanayso accelerationka uu leeyahay simple harmoniga ayaan waxaan oga hadlaynaa mass attached to spring, qaabkan ugu soo saar leen ila soo ustaad. Okay, mass attached to spring soo qaado moolo lagu xiray, mooladii waatana aan ku xirno mass m masskii marka waa la kala bixiyey, waa la jiiday, force ayaa la adeegsaday, waa la kala bixiyey, mooladii waa la kala bixiyey. waxaan dhahnay kan waa barta main position, barta uu taagan yahay hadda uu joogana waa extreme point, waxaa u dhaxaysa marbax extension uu sameeyo ama displacement uu sameeyo. Okay, shaygan inuu meeshaas uu tago horta waxaa sabab u ah applied force, xoog baan adeegsaday. Okay, inuu soo laabto shaygan haddayna waan soo sheegnay wuu soo laabanaan dhahnay, waxaa sabab ah inuu soo laabto restoring force wuu soo noqonaya obviously. Okay, labadan forces iska soo horjeedo, applied force iyo restoring force kan iska soo horjeedo ayaan waxaan ka diyaarinaynaa qaacidada acceleration ustaad. Okay, applied force markaan ka hadlayno, Newton's second law of motion wuxuu leeyahay, Newton's second law of motion wuxuu uga hadlayaa applied force waxaa lagu helaa mass times acceleration. Newton's second law of motion wuxuu leeyahay force xoog waxaa lagu helaa mass times acceleration. Robert Hooke wuxuu leeyahay Hooke's law states restoring force markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay waxaa lagu helaa kx aa lagu helaa. Okay, labadan qof kelita waxay ka hadlayaan labadan force inay opposite isku yihiin. Marka force haddii force kale uu opposite ku yahay, forcekaas xajmi ahaan way isla egyihiin, yacni markaan haddaa tusaaleynayni aan lahayn fiilo haddaa kala bixisid, waxaan rabaa elastic material haddaa kala bixisid oo kala jiidid, in yaroo kala jiidid aad sii daysid, xoogga ay kugu soo laabanayso waa xoog yar. Haddaa aad u kala bixisid aad sii daysid, xoogga ay kugu soo noqonayso waa xoog aad u sareeya, xoog xajmigiisa aad u sareeya. Wuxuu leeyahay mar allaala mar ficil uu dhacayo waa inuu jiraa falcelin ka dhalata ficilkaasi dhacayo oo la eg xajmi ahaan, jaha ahaanna uu kasoo horjeedo. Marka hadda labadan force, applied force waxaan dhihi karnaa this applied force kan waa action force aan dhihi karnaa. Kan waa falcelintii ka dhalatay waa reaction, wuu u jawaabaya. Waa action, ficil aan sameeyey, falcelintii ka dhalanayso waa ficilkii inuu ugu soo laabto. Marka labadan force aan haysto oo midna Isaac uu ka hadlayo oo applied force uga hadlayo, waxaan leeyahay wuxuu leeyahay force oo Robert Hooke ka hadlayo restoring force uu uga hadlayo. Therefore, labadan force aan comparison ku sameynaya, mass lagu dhufto acceleration waxay leegtahay kx. Waxaan raadinayaa acceleration, halkaan m u qaybi, halkaasna m u qaybi, mass la bixi, halkaan waxaa ii soo haraysa a waxay leegtahay k oo ku dhacsan x over m. Halkaan waxaa helay k oo ku dhacsan x over m. Okay, ustaad, acceleration simple harmonic waxaa lagu helaa spring constant lagu dhuftay extension oo ah kx over m. saan waan dhihi karaa. Wuxuu leeyahay a 2 kg mass hangs at the end of a spring whose constant
is 400 newton per meter. cuf la-eg 2 kiilo ayaa wuxuu leeyahay ayaa laga laalaashiyey moolo xajmigeedana la-eg 400 newton. The mass is displaced at a distance of 12 centimeter and released. Distance of the spring 12 centimeter and released. What is the acceleration at the instant displacement? X is equal to 7 centimeter. Okay, ustaad example kan inaan aad u fahanno waay. cuf miisaankiisu uu yahay 2 kiilo ayaa laga laalaashiyey moolo xajmigeeduna uu leeyahay 400 newton per meter. Maaskii waxaa la sameeyey displacement ayaa la sameeyey wuxuu sameeyey displacement barbax buu sameeyey dhererkeeda la-eg 12 centimeter la-eg. Okay, waxaa la leeyahay marka waana la sii daayay. What the acceleration karaarka imisa ayuu noqonayaa at the instant the displacement x is equal to 7 centimeter. Okay, ustaad moolada waa maaska wuu kala bixiyey 12 centimeter wuu gaarsiiyey. Waa amplitude waa fogaanta ugu fog uu gaarsiiyey waay. yacni labadaanaan kala rabaa inaan kala fahanno 12 centimeter kan iyo 7 centimeter kan. 12 centimeter kan ustaad waa fogaanta ugu fog miisaanka uu gaarayo sheygan mooladii uu gaarsiiyey waay. 12 centimeter markuu gaarsiiyey waa la sii daayay, yacni waa la jiiday 12 centimeter aa la geeyey waa la sii daayay. markii la sii daayay 7 centimeter instant displacement markuu marayo 12 uu kasoo laabtay 7 markuu marayo yacni acceleration uu sameynayo imisa ayuu leeyahay lahayd 7 centimeter markuu joogo. Okay, waxaan dhahnay acceleration waxaa lagu helaa k lagu dhuftay m over k lagu dhuftay x over m. This is the acceleration qaacidada aan ku helin. Okay, maxaan haystaa marka? waxaan haystaa 7 centimeter of extension. waxaan u bedelayaa displacement-gan meter ayaan u bedelayaa 100 u qaybi waa 0.07 meter. Okay, acceleration wuxuu leeyahay k oo 400 ah lagu dhuftay extension 0.07 ah loo qaybiyey mass oo leeg 2 kiilo. labadan eber labadaas ay la baxaan. 4 ku dhufo 7 waa 28. 28 2 u qaybi waa 14 meter per second square. karaarka uu sameynayo acceleration deceleration waa maadaama uu celinayo karaarka uu sameynayo mooladan 7 centimeter markuu marayo displacement-giisa waa 14 meter ilbiriqsigiisa.